خطير، شيء مجنون هذا. hal maalin oo hurdo kadib ayaan soo toosay oo sontii jirkeyga ay ku saaqday. markaan soo toosay ayaan banaanka soo aaday. waagi markuu bariyay asxaabtii banaanka ayay igu sugayeen, ayagoo sugaya sidii aniga aan noqon doono. way wareysteen, waxay yiraahdeen kabaran caafimaadkaaga sidee u aragtaa, suntiisay kuu saameysay. run ahaantii anigana waxaan ugu jawaabay in caafimaad dhammaystiran aan dareemaya hadda, maskaxdeydana ee fresh ee tahay. ayagana waxa keliya ay sugayeen waaba intaas, sababtoo ah way garanayaan suntaasi qofka haddii la siiyo in jirkiisa in badan ay isfurfurayso, caafimaad fara badanna uu helayo. anigana maalin kadib ayaan caafimaad helay. halkani oo saan u taalo oo quruxda badan oo geedahaasi leh ayay ku nool yihiin dadkani. biyahooda, raashiinkooda iyo wax walba ay u baahan yihiin halkan ayay ka samaystaan. dhalinyaro ayaan arkay oo sii socota. markaasaan weydiiyey, waxaan idhi xaggee u socotaan? waxay dhaheen ugaar ayaan u soconaa, ugaarsi. ma idin raaci karaa baan idhi. way iga ogolaadeen inaan hore usii raaco. inaan soo ogaado ayaan rabaa qaabka wax ugaarsanayaan. dadkaana ujeedaan raashinkoodii iyo waxay cuni lahaayeen halkan ayay ka keensadaan. ayagaan raacay, ayagaan dabagalay. socodka kama daalayaan. waxaa laga yaabaa maanta oo dhan inay socod wax ku raadiyaan. hadda waxbay arkeen, waxbay rabaan inay ugaarsadaan. shimbiraha ayay ugaarsadaan. marmarka qaarkood xitaa waxay ugaarsadaan daanyeerta, maxaa yeelay daanyeer way cunaan ayagu. wuxuu ku qasbanaaday inuu geedka fuulo si uu u soo dejiyo wixii uu ugaaranayo. maxaa yeelay geedka ayuu ku dhegay bahalkii uu ugaarsanayay. geedkii ayuu fuulay, ugu dambeynna wuu soo riday, dhulka ayuu ku soo riday wixii ay ugaarsanayeen. gacanta ayuu ku dhigay. waxaan ka wareystay mawduuca guurka. qaabkee ayaad isku guursataan? gabadhana waxay igu jawaabtay qaabka isku guursadaan inay tahay qofka inuu gabadha ka doonanayo ama ka codsanayo aabbaheeda, kadibna saas uu ku guursanayo. su-aasha kale aan weydiiyay waxay tahay kabaran arrinta qofka inuu guursado dhowr xaas. oo maxaa yeelay hadda waxaan arkay hal nin oo kale inuu qabo dhowr xaas. waxay dhahday arrintaasi waxay soo bilaabatay mar hore markii oo qabaa'ilada kale aan dhex galnay. qofka waxaa laga yaabaa hal naag ama laba naag inuu guursado. awalka hore way iska fududaan jirtay dhahday, laakiin hadda xooga way ka duwan tahay arrinta qofka inuu wax badan guursado. waxaan kaloo weydiiyey, waxaan idhi arrinta afduubka ka waran. afduub waxaa jiro aad samaysaan oo qabaa'ilka inay isku duulaan oo qabiil kale ay ku duulaan, kadibna isaas gabdha ay ku soo wataan. waxay dhahday arrintaasi way jiri jirtay, dadka inay isku duulaan waagii qabaa'ilka ay kala xoog badnaan jireen ayay jiri jirtay arrintaasi. in qofka duulaan uu qaado kadibna sidaas uu kusoo afduubto dumar kale. odayaashii xaafadda waxay isku diyaarinayeen inay aadaan ugaarsi. qalab ayay diyaarsanayeen.
oo waxay dhaheen markaan ugaarsi aadayno oo aan rabno in doonfaarka ama shimbiraha ama xayawaanada noocaas aan soo ugaarsano waa inaad diyaargarow adag aan galnaa oo hubkeennii aan diyaarsanaa kadibna weerar culus aan qaadnaa maxaa yeelay saan hore idinkugu sheegay raashinkii ay cuni lahaayeen dadkani guryaha uguma diyaarsano waa inay baxaan subaxdii raashinkaas ay cuni lahaayeen ay soo raadiyaan carruurtoodii waxay siin lahaayeen inay soo raadiyaan shaqo ayaa u taalo ma ah marka in oo waxaan la iska fadhinaya ama suuq ay kasoo gadanayaan wax la yidhaahdo ma jiro marka diyaargarowgan markay galaan kadib ayay waxay aadi doonaan ugaarsigii anigana waxaan ka codsaday in ugaarsigii aan u raaco kadibna aan soo ogaado arrintooda balse waxaan arkay gabar u socota meel u socota meel ay u socotay markaasaan weydiiyey waxaan xagee u socotaa waxay dhahday beeraha ayaan u socdaa si aan wax usoo gurano inaan raaco aan ka codsaday waa israacnay raggiina waxaan ka codsaday markii uu soo dhowaado xilliga bixitaanka oo ugaarsiga inay ii yeeraan oo aan israacno subaxdii hore dumarku waxay soo aadayaan beeraha waxbay soo raadinayaan waxbay soo gurayaan ragguna way baxayaan ayagana waxbay soo raadinayaan ugaarsigii bay raadinayaan kadibna guri baa la iskugu imaanayaa wixii baa la wada karsanayaa wixii baa la wada cunayaa ugu dambeyn wiil baa la ii soo diray oo idhahaya odayaashu waa diyaarsan yihiin ugaarsigii baa la aadayaa waan soo baxay odayaashii baan soo raacnay xagga iyo ugaarsigii iyo howshii adkeed ee usoo baxeen ayaa anigana ku wehliyey run ahaantii waxay soo baxeen marka ugaarsigii waxayna raadinayaan inay ugaarsadaan tusaale ahaan waxay raadinayaan yaxaas oo kale yaxaas webiga way cunaan ayagu kaasay raadinayaan markay helaan kadibna xaafadii bay ugu soo laabanayaan xaafadda markay usoo laabtaan kadib ayaa halkaasi lagu diyaarinayaa raashinka gabdhihiina waxay keenayaan wixii beerti kasoo gureen raggiina waxay keenayaan waxay soo ugaarsadeen run ahaantii sidaas ayay hooshoodii iyo noloshoodii ku maareeyaan reer Amazon oo degan duurkan weyn nooca ay raadinayaan xataa oo yaxaasku waa yaxaaska madow oo yaxaas webiga ah weliba mid yar ayay raadiyaan maxaa yeele waxay ku leeyihiin kan yar ayaa ka hilib mac kan weyn haddaba raad ayay arkeen hadda ayagoo dhahayo halkan ayuu maray raadka ayay raacayaan ugu dambeyn waxay leeyihiin marka biyahan ayuu galay yaxaaskan raadinaynay biyihii aan wada galno yaxaaska aan raadino meeshaan kama dheera biyihii baa la wada galayaa marka hadda waxaan raadinaynaa yaxaaskii saan usoo qaban lahayn ugu dambeyn yaxaaskii gacanta ayay ku dhigeen way heleen weliba asagoon la dhaawicin gacmaha ayaa lagu qabtay afkii baa marka laga xiray iyo qaybta gadaale haddii la xiray yaxaaskii wuu dhaqaaqi waayey yaxaas yar ayuu ahaa gacanta ayay ku dhigeen ugu dambeyn ugaartoodiina way ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan guriga ayaa la keenay yaxaaskii waa la kariyey oo waa la dubay si fiican baa loo solay anigana waa laygu marti qaaday inaan cuno maxaa yeelay
ayaga ayaan marti u ahay wax walba ay sameynayaan inaan tijaabiyo oo aan dhadhamiyo oo ku qasbanahay. Waxaa la ii soo dhiibay marka qayb ka mid ah xaaskii madaxii ayuu tusiyey siduu yahay. Cad yaro marka waxaa la ii soo dhiibay oo hilibkii ka mid ah. Sidaasi ayaa anigana ku dhadhamiyey. Run ahaantii aad iyo aad ayuu u macaan badnaa. Wuxuu ahaa xaas yar oo dhayla ah oo hilibkiisana macaan badan. Anigana waan dhadhamiyey. Run ahaantii aad iyo aad ayuu u macaa hilibka iyo xaaska. waxyaabaha aan ka soo bartay reer Amazon ayaa waxaa ka mid ahaa waxay leeyihiin haddaad rabto inaad awood yeelato oo qof aan la iska celin karin aad noqoto waa inaad isticmaashaa bahalkan mukhadirka ah. waa bahal maandoori ayaga ay isticmaalaan. sanka ayaa lagaaga afuufayaa isla markii waxaad ka dareemi doontaa maskaxdaada inay u gudubtay. anigoo igu tijaabiyeen maxaa yeelay mar badan la joogo wax walba ay sameynayaan inaan tijaabiyo oo ku qasbanahay. way igu tijaabiyeen run ahaantii maskaxda ayaan ka dareemay inuu iga tegay bahalkii mukhadirka ay isticmaalaan mukhadiraadka ay isticmaalaan. sankii labaadna godkii labaadna way iga tijaabiyeen. run ahaantii maskaxda iyo ii fureen. waxaas bay isticmaalaan. waxay ku leeyihiin awooddaada iyo kartidaada isma dhimayso weligaaga. waxaad noqonaysaa qof karti leh. ugu dambeyn waxaa la gaaray xilligii la ii sagotin lahaa ama la ii macsalaameyn lahaa. muddadii aan la joogay ayaa ii dhammaatay. xaflad ayaa la ii dhigay oo macsalaameyn ah. waxaa la ii mariyey kalarkii ayaga ay marsan jireen. labiskoodii oo kale oo yacni waxyaabaha madaxa la gashado iyo waxyaabaha gacmaha lagu xirto intaba way ii xireen. xaflad macsalaame ayay ii sameeyeen. ugu dambeynna dhulkii reer Amazon sidaas ayaan ugu soo tegay ayagoo isoo macsalaameeyey. weliba ayagoo idhahayo hanaga tegin nala joog qof fiican baa tahay ayagoo dhahayo ayaan ka soo tegay. run ahaantii waa dhul baaxad weyn oo ilaa iyo hadda ay degan yihiin dad reer Amazon loo yaqaano oo dad kalena aan ku dhex jirin oo ayaga keligood halkaas ku wada nool. barnaamijkeenina halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddaad ka heshay barnaamijkan qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaadba fadlan asxaabtaada la sii wadaag. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.